xafiiska hanti dhowrka guud waa xafiis 60 la dhisay soo gaaray ilaa waqtigan la joogo 1993 aan shaqada ka bilaabay ilaa haddana waxaan ka ahay ku-xigeenka koowaad hanti dhowrka xafiiska cabashada ugu weyn waxaa waaye wixii shaqaala oo waayo aragga ahaay oo 30 sano soo shaqaynayay qaar waa la wareeji waxaa loo wareejiyay shaqada bulshada iska wareeji qaar ka soo harane shaqo looma diro anigoo ku-xigeenka ah wuxuu gaaray xataa inuu dhaho shaqaala xataa ay xafiiska gelin marka dad dhalinyaro ah oo asaga keensaday ayaa meesha maamulo baadisana waxaa aado dad kooban tababarada dibaddana dad kooban ay aado shaqaala intiisa kale waxay iska joogaan xafiiska iska joogaan taas waxay keentay shaqaalihii inay cabasho ka keenaan isku dayeen magaceedii inay warqad qoraan ee u gudbiyaan saddexda hay-adaha ugu sarreeyo waddanka madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ayagoo muujinayo cabasho ku saabsan waxa ka dhacaya xafiiska hanti dhowrka guud marka waxaan meesha ka muuqata inaad adiga iyo ku kala qaybsantihiin dhanka shaqaalaha iyo hanti dhowraha qaranka sax waa ku kala qaybsannaho ninkaan nin junior waaye hadda dhawo yimid shaqada macalin kuma soo shaqayn jirin sharcigan wuxuu sheegayaa haddii oo hanti dhowraha baxo ku-xigeenka koowaad ugu darajo weyn inuu shaqada qabtaa marka taas waxaa loo yeelay xafiiska waa xafiis technica waay ma aha xafiis oo macnaha siyaasadeed marka taas waxay keentay inaan isku fahmi wayno habka maamulka iyo shaqada loo wadaayo waa gartay waxaa nagu maqaala ah in hanti dhowrka qaranka iyo adiga waxyaabaha isku haysataan ay tahay shaqaalo adiga kula shaqayn jiray oo shaqaday ku adkaatay inay sii qabtaan iyo hanti dhowrkii oo keensaday shaqaalo cusub halkaa soo sax maaha waxa ka jira xafiiska hanti dhowrka qaranka waa jiraan shaqaalii waaye aragga waa sidii hore kugu sheegay waa la wareejiyey inta soo hartoo joogtana wax shaqa ay qabtaan ma jirto shaqaale cusub oo keensaday oo qaarna xaggiisa la xijiyo qaarna si kale ku yimaadeen shaqaalaha markii la qoraayo waa inay soo maraan guddiga shaqaalaha rayidka dowladda kadibna loo soo gudbiya hay-adda nasiib darro ma yeelin shaqaalaha waa keensaday shaqaala ma ahan oo dowladda u shaqeeyo haddana wuxuu u diraa hay-adihii labaaraya loo diraa taasoo sirtii xafiiska ahayd nin shacbi ah oo gacanta kusoo dhigaya una gudbinaya meesha rabo waa gartay haddii guddiga shaqaalaha rayidka aan la marsiinin sidee qof aan loo shaqaalaysiinin oo guddigaas aan marin sidee ugu shaqayn karaa xafiis dowladeed xafiis dowla kama shaqayn karo waa sharci darro waaye laakiin hase ahaatee wuxuu ka dhigtay xafiis asaga meel uu leeyahay waxaa caddaynayo haddii ay tahay xafiis dowlo warqada wuxuu qoran lahaa guddiga shaqaalaha rayidka wuxuu codsan lahaa shaqaale intaasa u baahanahay ayuu kaa ka soo qaadi lahaa imtixaan ayuu kaanu soo gudbin lahay hase ahaatee ma yeelin toos uu keensaday meesha ku haystaa imasay gaarayaan waa 12 qofood waay guddiga dhanna maysan soo marin guddiga shaqaalaha sooma ay marin sidee marka baaritaan loogu aaminay inay sameeyaan wallaahi waa mid ka soo horjeedo sharciga shaqaalaha dowladda waa mid wax u dhibaysa heybadii uu lahay xafiiska hanti dhowrka iyo maamulkii dowli ahay mid ka soo horjeeda waay waa garta marka waa mid u taala dowladda annaka cabashadaas waa gudbinay marka la keenay wax u gudbinay dowladda u gudbinay oo aan dhehayno shaqaalahaas sharci ma ahan 12 inay baaritaan sameeyaan maxaa ku caddayn kartaa oo nala wadaagi kartaa wallaahi meel badan ay tageen waxay tageen dowladda hoose waa tageen waxay tageen magaceeda wasaaradda arrimaha dibadda ay tageen fahmino meelo badan ay tageen waa gartay waxaa kaloo nagu maqaalo ah in shaqaalo ka tirsan xafiiska aad adiga ka shaqayso oo weliba adiga saaxiibo dhow kula ahaa in shaqadii lagu adkeeyey la joojiyey qaarkood hay-adda dambi baarista ee baaritaan ku samaysay bal arrimaha xog nagala wadaag waxaa jirtay shaqaalihii markii culayska uu ku batay dhibaatadii u adkaysan waayeen waxay sumiyeen inay iswacaan meel iskugu tageen ay diyaariyaan cabasho kasoo horjeedo hanti dhowraha guud cabashadii waa soo diyaariyeen markay subaxii xafiiska yimaadeen qaar kamida soo sheegay wuxuu subiy is-hortaag oo wacay yaa samaynaya hanti dhowraha guud wuxuu isku yeeray hoolkii weynaay wuxuu dhahay waa la socdaa dad oo isku tegey oo suubi rabo xafiiska inay ka hor yimaadaan adiga handadaad iyo is-hortaaga ku subi tii ayadoo la sugaya shalay maanta waxaa yimid niman nin c i d ah هذا دم باريستا هيدا دم باريستا وحول وعلى هال
ilaa 3 qof 4 qof ayuu waqti dambe yimid oo la kulmay asoo dhahayo waxaan haysanaa video laga duubay waxaan haysanaa warkiina haysanaa handadaad iyo dhalinyarada yareed oo aan shaqada saas ka saynin inuu handado inta soo hartayna berri ugu talagalay inuu ugu tagaan meesha dhalinyarada marka waa ma sharciyeysin oo guddiga shaqaalaha ma ka diiwaan gashan ها كوا شغال عادي واي شغال عادي واي maxaa la weydiinaya marka والله waxay nagu dhaheen waxaa tihiin dad ka soo horjeeda magaceedii xafiiska horumarkiisa dad hanti dhowraha ka soo horjeeda tihiin dad soo aruursaa tihiin waxa adiga ah meesha olin kan waxay leeyahay anaga saas maal waxa ka cabanayni baaris dal aaday dad kooban loo diraa haddii magaciisii la suubinayo tababar dibadane dad kooban la diraa mar walba ay kala diraa yaa ka socday hay-adda dambe baarista oo xafiiska yimid oo shaqaalaha waday niyahow hal nin yimid aan lahay ninka magaciisa hal qof aa weydiiyey kuwa kale wax ma ka siin kaalka waxaa kaa ku dhahay shire mire magacaas miraa ku yaalay wuxuu dhahay dimbaarista ka socda waxaa noola sheegay inaa xafiiska ku hayseen qas waa garta adiga markaa ma joogta xafiis aniga bay ma joogin aniga maanta marka waa soo baxay marka bacdama aniga howlaha wixii shaqa oo asaga isku koobay aniga wax shaqa ma qabti xafiiskaas ka fadhiya qofkii yimaado magacanaha oo wax weydiiyo gooni laakiin wax shaqa aan qabto ma jirto kaliyan maahan kulli saas u badiyay asaa la wareeg wixii la wareeg in problemka ama dhibaatada ay xafiiska hanti dhowrka ka jirto oo shaqaale cusub la keeno kuwii shaqay jiray sida aad ii sheegtay la joojiyo hay-adda dambe baarista Everest waxaasoo dhan maxaa keenay oo ka dambeeya oo yani gadaal ku jiro dahda waxaa gadaal ka dambeeya hanti dhowraha guud oo diidan in cabashadan loo gudbiyo madaxda sare waayo madaxda loo gudbiyo waxaa imaanaysa guddi lasoo diro la baaro waxaan imaanaya waxa meesha yaallo taas ayaa asaa ka dambeeya asaana wacyi ninka keenay maya waxaan ula jeedaa maxaa intaasoo dhan inay dhacaan maxaa ka dambeeya bilowga sheekadan halkay ka bilaabatay sheekada waxay ka bilaabatay cabashada shaqaalaha maxay ka cabanayaan shaqaale waxay ka cabanayeen shaqa looma diro tababar looma diro inta badan dad kooban asaga wato ayaa meesha aado taas waxay keentay shaqaalihii inay dhahaan wadada sharciga marayna oo ah in aan u qorano cabasho madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha waa gartay cabashada madaxda dalka waad u gudbiseen maxaa laydinkugu jawaabay laba waa cabashada aniga intii macnaa dhex taalay anaa u gudbi madaxweynahana waa u gudbi dadaa ugu dhiibay anigu ma arkin asaga dadaa u sii marsi inay u geeyaan in kale ma sheegi kari dadna ra-iisul wasaaraha ugu dhiibay waa madaxa mas-uuliyiin ah marka wax jawaab ka soo baxayna ilaa hadda ma hayno laakiin midaan kale hadda cabashada isla darhaaday suubiyeen shalay la gudbi lahayn waxaa ka hortimid magaceedii is-hortaagan oo kusoo gacanta dhowraa waxaad tiri adiga iyo waxaad isku haysteen inaad xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha gudbis maxaad isku haysteen marka adiga aad si gaara uga cabata adna waxaa ugu cabanaya shaqaalahaas aan arkay oo si cadaalad wax loogu subinayn waxaa arkaysaa shaqaalo oo 5 goor dibadda aaday tababar aaday iyo shaqaale aan aadin xafiiska joogo taasoo ay cunto mugaysay waa gartay mas-uuliyadii saareen darteed iyo shaqada ummadda u haayo darteed ayay u qasabtay inaan dacweeyo dhaho ninkii saasuu subin u haya waa gartay cadeymo waa loo hayataa caddeemana u haya weli qaladaad aan jeclayn hadda oo ah taliyaan wuxuu secretary of Fiji wax sir u ah xafiisyada u ah ayaa gacanta ku hayna oo kulli xafiisyada shaqaalaha gacantooda ku wada jiro waa gartay oo shaqaalaha ay waxay ka cabanayeen ka cabanaya ha noqoto qalaad oo la suubiya noqoto laga suubiya hay-adaha laga suubiya ha noqoto gacanta lagu wada haya baaritaanada ay sameeyeen 12 qofaad sheegtay inuu hanti dhowraha xaggiisa ay ka socdeen waxay ku jawaabeen sidee loogu kalsoonaan karaa wixii natiijada wallahi waxaan subinayaa hal qof ama laba qof oo shaqaale oo iska dhexdhexaad ah ma shaqaale hor lama diraayo shaqaale iska jooyo hal sano shaqeynay ayaa lagu darayaa fahmino kadib ay ka soo baarayo marka waa ka sakataa natiijada ka imaanayso inay taa mid qadan tusaalada ku soo qabto afar shaqaale ah iyo laba dhexdhexaad ah ayaa shaqo waxay u aadeen wasaaradda arrimaha dibadda dhexdhexaadka maxaa ula jeedaa معناها مدبر توب شقيدين جونيور واي وحي هذا وزارة أرمية دبد وحي سود عوين وزير كحين كسود عوين مركز اللي جاب محكمة ده أفرد دعوة وقاضي حتى يحول تدوينه شرعي أول استعمالي إنه بالمري وسود ده وحول لواي واحد دب أوليه ملا الله تاس وحي كتبت أقول عنته إنه شغالة هنا وحكسين أي الله دري تاس وحي وصل يتسمع عندي حفيز كلها هاي kuwaas marka guddiga shaqaalaha rayidka ma ka diiwaan gashanayeen dadkaas baaritaanka afar kamid ah ma diiwaan gashanay waa gartay baarlamaanka hadda waxaa xor yaala sharci la xiriira hanti dhowrka qaranka sharcigaas bal muxuu yahay xog naga siiya wallahi xafiiska wuxuu lahaan jiray sharci
oo soo baxay 14 bisha afraad 1972 lambarkiisu yahay 34 sharcigaas waa ku dhan yahay intii loo baahnay waa dhici kartaa waxyaabaha dal lagu soo daro laakiin sharci kaamil ah sharciga asaas suubsaday waa sharci uu rabo inuu la mid noqdo madaxweynaha iyo wasaaraha wax talaamo ku leeyahay adiga maya waxa aad dhowrka talo ku leh inta asaga wata mooyee dadka aqoonta lahay waxay arigaa shoo kuma leh muxuu dhigayaa sharcigaas marka aad sheegto muxuu yahay kan hadda dhigtamo oo hadda baarlamaanka sharciga dhigtay waa sharci magaciisii marka hore laga dhigo xasaanadu lahay in aan taabi kara xasaanadu waxa iska leh baarlamaanka xildhibaanada iska leh ma lahaan karo qof oo caadi ah akamidahay inuu madax banaanaado xafiiska madax banaanaado dowladda oo xafiis madax banaan oo aan dowladda ka tirsaneyn ayaa macnaha ka mid ahay marka anaka waxaa jirtay misaal ahaan waagi hore waxaa xafiiska imaanaya dowladda executiveka hoos imaanayna madaxweynaha iyo wasaaraha hadda asaga wuxuu dhahay macnaha baarlamaanka ayaa hoos tegaya okay baarlamaanka waa siyaasiyiin waaye maahan magaciisi executive maahan aniga waxaa waaye waxaan lahaa shanta kaabayaasha dhaqaalaha lahaa waxaa waaye hanti dhoorka waxaa waaye xisaabiyaha waxaa waaye bangiga garyaqaanka iyo xilaalyaha shantaan waxaa hoos imaadaa magaciisi executiveka dowladda magaciisi golaha fulinta nasiib daro keligiisa muxuu ahay wuxuu aaday magaciisi inuu baarlamaanka hoos tago see u hoos tagaan siyaasad maaha meesha waxaa laga shaqeynaya maamul waa sharci saas u qaldan waaye una soo jeedinayno madaxweynaha iyo wasaaraha in ay arrintaas ka fiirsadaan golaha shacbiga iyo golaha sare oo aqalka bacdamaa ay wakiil ka yihiin ummadda soomaaliyeed sharcigaas sharci u cuntamo ma ahan ummadda iyo shaqada dowladda in aan beri lagu degdegin aanan la asxin dib loogu noqdo guddi loo saara ka codsanaya haddii caqabadahan aad sheegtay ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara wax ka dhaca karto inaa xafiiska noqoto xafiis ay noqonin bacdamaa isaga uu ka dhigta xafiiskaasi leeyahay inaa xafiiskan gacmo laisku tagaa dhici doonto inaa maamul laga leexdo macnaa nin walba iyo xooggaada ay noqoto oo ka baxdo gacantii dowladday noqonaysaa maxaa xalku aragtaa haddaday xalka waxaa u arkaa in dowladda guddi soo dirto oo baaro dhibaatada iyo mashaakil ka taagan xafiiska hanti dhoorka si xal loo gaaro shaqaalahan dhibaatadaas ay haysata hadda ma loo ogol yihiin oo xafiiska ma tagaan mise waa laga hor istaagay waa laga hor istaagay waxaa jira kaar aloo garaa madaxtooyada kaarkii waa lasoo sibi hadda lasoo sibi agaasimaha shaqaalaha gacanta ku haysto inta asaga la jirto waa la sii maanta intii lahay dacwo qoraysaan waa loo diiday waa kaarkii oo qofka lahaay oo sharciga u lahay ayaa loo diiday marka waa garan kartaa macnaha dhibaato ka soo socota xafiiska maxaad ku talin lahayd ugu dambeyn ugu dambeyn si degdeg ah guddi loo saaro oo ka kooban wasiiro iyo dad mas-uuliyiin ah baaro dhibaatada xafiiska taalla xaliyo ayaan soo jeedin lahay